madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in si ku meel gaar ah loo joojiyo barnaamijka baqti nasiibka ee Green Card kan loo yaqaano kadib markii la xaqiijiyay in ninkii loo haystay toogashadii dhimashada badneed ee ka dhacday jaamacadda Brown uu dalka ku soo galay barnaamijka baqti nasiibka ee loo yaqaano Green Card. wasiirka arrimaha gudaha dalka Mareykanka Chris Nauma ayaa goor dambe oo khamiiseed ku shaacisay baraheeda bulshada gaar ahaan X in ay amartay hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Mareykanka inay hakiso barnaamijka DVI iyadoo ku sabaysay in barnaamijkan uu qatar ku yahay amniga shacabka Mareykanka. toogashadan ayaa dhacday 13 December iyadoo laba arday lagu dilay 9 kalena lagu dhaawacay kadib markii qof hubeysan uu rasaas ku furay dhismaha cilmiga physics ee jaamacadda Brown oo ku taasho magaalada Providence ee gobolka Rhode Island. booliiska ayaa markii dambe aqoonsaday eedeysanahan oo ahaa Claudio Manuel Neves Valenti oo 48 sano jir ah u dhashay dalka Portugal. Valenti ayaa hore u ahaa arday jaamacadeed oo ka bogay jaamacadda Brown wuxuuna sanadka 2000 uu ka qalin jabiyay jaamacadda. saraakiisha ayaa sidoo kale ku eedeeyay in Valenti uu dilay Professor Nuno Laurero oo ka tirsanaa jaamacadda Mead 2 maalmood ka hor marka uu geystay weerarka jaamacadda Brown. Laurero waxaa meedkiisa markii dambe laga helay gurigiisa oo ku yaala Brooklyn maalintii Khamiistii. ciidamada booliiska Providence ayaa sheegay in Valenti meedkiisa laga helay bakhaar ku yaala gobolka New Hampshire taasi oo soo afjartay baaritaanada ballaarnaa ee lagu raajoogay. xafiiska daacadoogaha federaalka ee Boston ayaa sheegay inuusan jirin khatar kale oo markaasi bulshada wajahayso. wasiir Naomi ayaa intaa ku dartay in Valenti uu dalka ku soo galay fiisaha dalkugalka gaar ahaan kuwa kala duwanaanshaha sanadkii 2017 isla markaana lagu siiyay Green Card taasi oo keentayba in dib loo soo nooleeyo doodii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dooday inuu barnaamijkan meesha ka saaro. waxay xustay in sanadkii 2017 uu jiray weerar kale oo argagixis ah oo ka dhacay magaalada New York kaasi oo uu geystay nin kale oo barnaamijka DVI ku soo galay dalka Mareykanka kaasi oo dilay 8 qof. barnaamijka Diversity Visa Program oo sanadkiiba la siiyay ku dhawaad 50,000 oo qof oo fursad markaasi ay u helaan inay galaan Mareykanka ayaa si baqti nasiiba u siiya fiisaha dalku galka qof waliba oo ka yimid dalalka markaasi ka baxsan Mareykanka. mas'uuliyiinta amniga ayaa sheegay in baaritaanada hordhaca ay xoojinayaan walaaca madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump ee ku saabsan sida dadka aan looga baaran degin u mari karaan barnaamijkan taasi oo sababtayba in aqalka cad uu si degdeg ah uga falceliyo. ilaa iyo hadda maamulka Mareykanka kama aysan hadlin waxa bedeli doona barnaamijkan baqti nasiibka balse saraakiisha ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga dalka Mareykanka ayaa sheegayba in dib u eegis ballaaran lagu sameyn doono dhammaan hababka gelitaanka muwaadiniinta shisheeye ee dalka Mareykanka. joojinta barnaamijkan baqti nasiibka ee Green Card loo yaqaano ayaa durbaba dhalisay dood ballaaran oo ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka iyadoo la sugayo waxa xiga iyo talaabada rasmiga uu qaadi doono aqalka cad ee dalka Mareykanka.